Assalaamu calaykum. Barnaamijkeenan maanta waxaynu ku eegi doonaa oo aynu ku lafaguri doonaa waxbarashada dalkeena. Su'aashan waxay soo weydiisay inaan ku xidhan channelkeenan. Markii hore xataa waxay ahayd su'aal aan in badan aan isweydiin jiray naf ahaantayda. Weliba hal su'aal ma aysan ahayn, waxay ahaayeen ku dhowaad 5 su'aalood oo isku sidkan oo igu dhex murugsanaa mar walbana aan u raadin jiray cid iga jawaabta oo si tafatiran oo wax ku ool iga qancisa, balse ilaa hadda ma aanan helin su'aasha cid iga jawaabta. Haddii aan idin soo bandhigo su'aalahana waxay yihiin: waxa aynu baranayno ma yihiin wax isbedel bulsho iyo isbedel nafeed aynu ka dheefayno? 2. manhajka dalka cidda soo tafatirta ee soo diyaarisa waa ayo? Ma aqoon-yahan baa mise waa urur ku heshiiyey inay ka ganacsadaan hadba waxa dhallaankaas dhegtooda lagu shubayo? Su'aasha saddexaadna waxay tahay: 12 sano ayaynu dhiganaa iskuulka, ilaa haddana ma hayno hal arday oo ficil u bedelay wixii uu dhiganayay oo ikhtirac iyo wax soo saar sameeyay. Muxuu ficil u bedelaaba ficilba lama tusayne? Waxa uu dhiganayay physics, chemistry, biology, haddana maxaa ku dhacay ee waxaan loo dhigayo uu uga midho dhalin la'yahay? Su'aasha afraadna waxay tahay: maxaa ardayga 10 maado ama subject loogu xambaariyaa iyada oo la og yahay in hadhow waxaan oo dhan aanu ku takhasusayn oo jaamacadda uu qaadanaya hal maado ama hal majaal, wixii kalena ay noqonayaan hal bacaad lagu lisay? Waana su'aasha ugu badan in mar walba isweydiiyo. Haddii aad igu tidhaahdo waxaa looga dan leeyahay inuu mid walba fikrad guud ka qaato, waar miyaynaan run isku sheegayn? Ardayga haddii la rabo inuu fikrad guud ka qaato, maxaa 4 sano oo ku dhan oo waqtigiisa ka mida loogaga lumiyaa? Su'aasha kalena waxay tahay: maxaa qofka waxbarashada tartiibsan ka hadha loogu tilmaamaa mid nolosha ka dhacay oo saaqiday? Su'aashan waxaan uga gol leeyahay marka ardayga iskuulka dhiganaya isaga oo form 1 ah uu ka tago dugsigii uu dhigan jiray una jeesta meel kale oo iyadana waxbarasho ah, laakiin ka madax bannaan 12 sano ee subaxa la jarmaadayay lana aadayay dugsiga. Ha taga goob farsamo gacanta ah ama goob wax akhris oo isaguba waxa isbara'e amaba majaal kale oo aqoontaba ha doortee. Maxaynu ugu eedaynaa oo ugu tilmaannaa qof faashil ah iyada oo laga yaabo inuu ka aqoon badan yahay qaar badan oo jaamacada ka soo baxay sheeganayana aqoon-yahano? Taasina waa dhaqanka caanagayigeenna, balse bulshooyin badani aanay nala wadaagin. Maxay waxbarashadeenu midho dhal u yeelan weyday? Waa su'aal u baahan in aqoon-yahanada waddanku u fadhiistaan oo si qoto dheer u lafaguraan. Waxbarashada dalkeenna maanta waxaa lagu masaali karaa waa sidii waraabihii maqlay dumarka sheekaysanaya ee ay midi tidhi: nacaawa halihii ramadka ahaa ayaa naga dib jiray oo raydabtii halkeer ahayd ayaa lagu sheegay. Kadibna uu damcay inuu caawa mirto halahaas ee uu ilaa raydabtiisa sii daayey. Markii uu aaggii soo gaadhay ee uu halihii waayeyna yidhi: waar ma raydabtii ayaan raydabtii ahayn, mise halihii ayaan dib jirin, mise rimay ka soo dhacdii baan run sheegayn, mise ruugallay qabay anigaan roorayn? Ama waa sidii ninkii reer miyiga ahaa ee aan hore u arag meel salaad ciideed lagu tukanayo ee maalin jimcaha jamaca ciidda ka soo qayb galay ee markii takbiirta xirashada dhowr jeer lagu celceliyey yidhi: waar halkee ayaa ay salaadu ka xidhmi laadahay? Dhalinteenna maanta waxaa ku dhacay yaanan iska reebina dhalintayada maanta waxaana haysataa eedaad aqooneed oo aan leenahay ruugana la qabay maanagaan roorayn, mise inkaar qabayaashii lahaa waxbarta ayaan run sheegayn. Haddii aan u fiirsanno xaalka in badan oo ardaydeenna waxbarata ah, waxaad arkaysaa inay heeryadii caajiska iyo isdhigashada iska rideen oo ay waxbarasho diyaar u yihiin, balse ay dhexda ugu jiraan aqoon qulban oo aan islahayn. Miyaadan u fiirsan cabashada ay badankoodu farta dhexda ka qaniinsan yihiin iyaga oo leh intaasoo ayaan danaynaynaa aqoonta oo aan wax akhriyaynaa, haddana wax igu biiray iyo waxaan kororsaday midna ma garanayo. Waxa aan baranay waxa keliya aan ka xasuusanaa waa ciwaanadii buugaagta aan dhiganaynay iyo hal cutub oo macallinku imtixaan adag nagaga qaaday. Intaas waxaa dheer, haddii aad u daymo badiso hannaanka waxbarasho ee ka jira waddankeenna, waxaad arkaysaa inaanu ardayda ka caawinin in hadafkooda ay ka leeyihiin waxbarashada ay sii qoto dheer uga gun gaadhaan. Maalin ayaa nin weyn oo waalidii ah igu yidhi: iskuul ma dhigataa? Waxaan ugu warceliyay haa waan dhigtaa. Markaas ayaa uu igu yidhi: adeer wax kala ha baran ee luuqadda carabiga iyo ingiliishka un xoogga saar, inta kale waxaa kugu dambaysa marka aad galaaska 12aad aad dhammayse. Ninkaa waayeelka ahi hadalkaa uu ii sheegay waan weeleeyey. Sidii aan u weeleeyeyna waxay noqotay sidan. Runtii ma aan rabin inaan sheego, balse barnaamijka ila galay
waanan rajaynayaa inaad badankiin wax badan aad ka soo dhiraandhirsan kartaan. Waxa aan ku jiray ardayda dugsiga ugu sarreysa imtixaanada ee mar walba dhibcaha ugu sarreeya keena. Casharrada iskuulka waan isku dhibi jiray si aan kaalin fiican aan u galo, balse wixii ka dambeeyay maalinkii ninkaasi warka ii sheegay, casharrada dugsiga waxaan ka doorbiday inaan anigu akhriso buugaagta aan jeclahay oo ka baxsan manhajka. Kaalinta koowaad inaan galo waxaan ka doorbiday inaan naftayda aan wax baro oo aan tarkiiska iyo aanan focuska saarin casharrada dugsiga laygu soo dhigay, balse aan isku dayo inaan buugaag ka baxsan aan akhristo oo cidna imtixaan igaga qaadayn, cidna igu qasbayn, balse aan ka faa'iido waxaanan dugsiga ka baranayn. Waxaasoo dhan waxa igu dhaliyay markii aan arkay kuwii igu horreeyay oo aan wax maxsuula soo saarin, taladii ninkaa waayeelka ahaa iyo waxyaabo badan oo indhahayga ku arkayay. Intaasoo dhan iyadoo ay jirto, haddana waxba adiga iyo aniguba kama qaban karno, balse ma aanan sheegin haddii madaxdu aragto barnaamijkan kadib uu sabab u noqdo inuu isbeddel yimaado. Balse intaas ka hor hal talo ayuunbaan ku siinayaa: dugsigaagana dhigo, balse ha ku ekaan oo ha isku soo koobin. Aduu naftaada waxbar, taasina waa midda aad meel ku gaadhayso. Ha noqoto xirfad ama majaal kale oo aad ku fiican tahaybe, inaad heshaana maanta waa ay fududahay. Haddii aan tusaale ku siiyo, maanta waxa aad aaday goob library ama goob wax akhris, waxna waad ka soo akhriday. Dugsigana waad aaday cashar ayaanad ka soo qaadatay oo macallin ayaa kuu soo sharaxay. Keebaad hor ilaabaysaa casharkii macallinku kuu dhigay iyo kii aad adigu library-ga aad u aaday? Dabcan waxaad hor ilaabaysaa kan aad dugsiga ku soo qaadatay oo ay sababtu tahay kan library-ga adiga ayaa doortay oo qofku tidhi tag ma lahan, balse kan dugsiga haddii aad tagi weydo waalidku waxa ay ku dhahayaan maxaa aad dugsiga u aadi weyday. Dugsiga laftiisa xaadiriska ama attendance-ga waa lagu qaldayaa. Markaas waa kaa farqiga u dhexeeya wax isbaridda iyo waxbarashada qasabka ah. Halkaas ay noogu jooga barnaamijkeena maantu. Intaynu barnaamij kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa salaanta Islaamka. Wassalaamu calaykum.